bal sawiro adigoo dhowr iyo 20 sano jir ah, ninku wakhtigu ugu xooga wan yahay, laba ninaati hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan, u diyaar garoow inay dagaal galaan, wax dhacaan, yacni xoogooda iyo maskaxdooda wax ku meel mariya, misena uu idinka awood badiyo nin oday ah 70 sano jir kor u dhaafay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا أدوان سلامي سلامك بعدي سورة هذا ما تحرّوين ندين لو ذاقو شيكو أما قصة عجيبة أو عن سلايها وحبدا ولغا فايدي دونا عادي أدوان سوردوينيا هذا كهر وقت لنو قياسي sanadkii 1993 ilaa 1995 inta u dhaxaysay waxaa deegaanada waddanka Suuriya ka dilaacay dhowr magaalo oo ka mid ah dhalinyaro is-abaabulay iyo iskoodu shaqaysanayay oo ku caanbaxay inay dadka dhacaan oo sidaas soo shaqo tegi oo waxay samayn jireen inta badan inta ay dadka waxliyada habeenkii guryaha ugu daataan waddooyinka ku qabtaan si wada jira isugu iman jiray wixii ay soo helaan u qaybsan jiray oo sidaas ku caanbaxay siday beriyo u socoto hawshoodii iyo waxay beriyo sii wadaan oo sidii shaqadoodii ku sii wataanba maalin maalmaha ka mid ah in badan waxay isku dayeen dowladdu iyo ciddii wakhtigaas meesha ka shaqaynaysay inay soo afjaraan howlgallo fara badan baa lagu saaray waxna waa nagaga qaban waayey walow qaar ka badan oo ka mid iyaga la xidhay marka waxaa jiray wakhtigaa nin odaya oo dhowr iyo 7 sano jir ah sarkaal ciidan ahaan jiray oo howlgaba ubadna wax hal wiil dhalay halkii wiilna uu waxbarasho uga maqnaa waddanka dibadda waddan ka mid ah odaygaas gurigu iska deganaa wixii uu yaraantiisii soo shaqaystay wuu iska cunayay oo meel iska joogay xoogaa hantiya haystay oo saas aanu sii buurnayn habeenada ka mid ah dhalinyaradii waxay sahansadeen ninkii odayga ahaa waxayna dooneen inay ka dhacaan wuxuu guriga ku haysto dabadeetana 2 nin oo kowii ugu sarsareeyey ama yacni ragga meel walba geli jiray ugu xiniya caddaa yacni iyagana muunadda u ahaayee madaxdooda ka mid ahaa ayaa habeenada ka mida u tashaday inay odaygaas u dhacaan sidii caadada ahayd qorraxdii waa dhacday dadkiina waa kala seexdeen waxay ku talagaleen inay hawshoodii fuliyaan waa soo dhaqaaqeen howlgalkoodii bay galeen howlgalkoodii markii ay galeen gurigii bay u dhaceen waxoogaa bay gurigii ku dhex dhuunteen oo waxaweye ku dhuumaalaysteen si ay isaga hubiyaan in odayga cid kale la joogto oo hadlayso iyo waxyaaba noocaasa sida caadiga ahna ninkani waa sarkaal ciidan oo hore oo howlgaba waa faytar weeye yacni waa dagaalyahan ma aha nin dee yacni hawshiisu sahlan tahay laakiin iyagu saas may filaynin waxay filayeen nin oday ah iska raqaya ah tabcaana waxay rabaan intay ka qaataan ay iska tegi karaan laakiin sheekadu sidaas may noqonin ee waxay noqotay cirib dambeedkoodii iyo waxaweye bartoodii gebagabada dhalinyaradii loo taag waayey waxay noqotay meeshii ay ku gebagabaysmi lahaayeen balse taas iyaguma ogeen xoogaa ka bacdii muddo saacad ka bacdi ah oo ay guriga ku jireen oo odayguna aanu ka warhaynin waxay bilaabeen howlgalkoodii waxay albaabka ku jebiyeen qolkii u hurday wayna u galeen si ay noqotayba waxaweeye ninkii odayga ahaa dagaal buu galay nimankii uu dareemay markay albaabka jebiyeen uu ogaaday waa nin dee sarkaal ciidanahaayo waxaweeye iska hubaysan isaga laftiisa iyo kollayba hub aan gurigiisa ka marhnay wuxuu markiiba gacanta la haleelay bistoolad guriga u dhex taalay iftiinkii ama leyrkii oo aanay weli shidina rasaas ayuu ku furay waxaa dhaawacmay mid iyaga ka mid ah kii kalena isla daqiiqadii uu dhaawacmay ninkaasi wuu arkay inay xaaladdu isbeddeshay oo xaaladda xumaatay wuxuuna dibadda uga cararay qolkii iyo guud ahaan gurigii oo dhan ninkii sidaas ayuu odayga ahaa wacay laamaha ammaanka iyadoo ninkii dhaawac yahay oo guriga yaallo sidii baa loogu yimi waa la qaaday cisbitaal baa la geeyey dee ninkii halkaas ku dhaawacmay wuxuu noqday oo dabiib u noqday in dadkaas waxaweye dadkii laga qabto oo raad la raaco wuxuu isagu sheego iyo wax si kale loo ogaadaba waxay noqotay in dhammaantood xabsiga lagu soo uruuriyo oo waxaweye xabsiga lasoo dhigo intii kalena farxadkoodii ay magaalooyinkii ay joogeen iskaga yaaceen oo u yaaceen waddanka qaybihiisa kala duwan iyo waddamada deriska waxay filayeen xaaji iska fudud oday ay xoolihiisa iska qaadan karaan laakiin waxay noqotay ciribdamboodkoodii marka sheekadani waxaynu aad iyo aad uga faa'iidaynaa caqliyad yacni inay ka fiican tahay awoodda yacni ninkaasi kama awood badnayn labadan inay dhallinyarada kama waxa weeyaan xoog weyneyn laakiin keliyaata waa uu ka caqli roona
oo ka fiicnaa sidoo markii dambe uu isagu sheegay uu ku waramayna yacni wuxuu sheegay inuu ilaa iyo markay guriga u soo dhaceen uu ka warhayey oo waxa weeye uu la socday warkooda laakiin uu islahaa haddii aad dabadda ugu baxda ama meel iftiina aad ugu baxda way kaa awood badinayaan ama way ku dilayaan ee markay qolkan is yidhaahdaa soo gala la eego markaas uu ku talagalay inuu laayo marka waxay ahayd caqliyad iyo waxa weeye fikir wanaagsan oo uu qaatay oo naftiisana ku badbaadiyey ummaddii ay dhacag iyo dhibaatada ku hayeenna ku badbaadiyey marka yacni inkasta oo aad xooggaaga aaminsan tahay in ka badan aaminsanow maskaxdaada yacni maskaxdu iyadaa mar kasta ka awood badan muruqa mawduuceenu intaasu maanta ku kooban yahay waxaan rajaynaya inaad wax fara badan ka faa'iideen aad iyo aad baan idinku mahadcelinaya haddaad halkanala soo gaadheen insha allah mawduucyada noocana waa idiin soo timi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu